برتانيو الحمد لله رب العالمين مقعي وسوق كيس محمد وحانيو عن ليسوع لي بشي بشان لو يتولمك شنع شان توقع qaybtii ugu dambeysay la keenay qaybtii labaad ee la keenay ayaan ku jiray waa gartay weydiinayaa inta aan u imaanin safarkaagii ka hor halkee ka safartay halkee ku noolayd maxaad se qaban jirtay niyow waxaan horta ku noolaa magaalada la yidhaahdo Hargeysa waxaan ahaa nin arday ah jaamacadda dhigan jiray alxamdulilah rabbil caalamiin jaamacaddanoo semester 3 maraya ayaa waxaan tahriibta la yidhaahdaa maskaxdayda soo gashay iyo waxyaalo badan oo magaranaysaayay iga hor yimid salaajigeed ayaan tahriibta aan abaabulay oon weygeyd maray waa tahay sanadkan goormo ah marka tahriibaysa waxaan baxay 2017 bishii lixaad haye safarkaagii halkuu ka bilowday intaas ku tagtay waxaan Hargeysaan ka baxay waxaan maray taa Ethiopia waxaan maray Suudaan waxaan maray Liibiya bartaan ka galay waa gartay Liibiya markii aad tagtay maxaa la kulantay wallaahi waxaan magaranaysaayay lama iloobaana waxyaalo wallaahi dhibteedu aad bay u fara badnayd waxyaalahan kala kulmay markaan ka sheekeeyo xagga saxaraha nin deris lahaa aan saaxiib ahayn oo walaalkay ahaa oon wada soconay ayaa horta tiisii noqotay oo saxaraha igaga dhintay saxaraha markan Suudaan ka baxnay ayaa waxaa lana geliyey saxaraha dhexdiisa ayaa qolo degan lanala dejiyey waxaan ugu tagnay dad maraya 400 iyo 50 qof xagii baa lana dejiyey xagii baa dadka lagu ururin jiray wallaahi halkaa dhibaatooyinkan kala kulmaya ahayd cuntada markay noqoto waxaan cuni jirnay makaroona cad makaroona cad waa makaroona cad ayaa lana siin jiray waxaan ku cuni jirnay makaroona yar cad oo intaa leeg ayaan waxaan ku cuni jirnay 12 qof waa distida marka la saaro waxaan disti taangiye maad aragtay foostooyinka ayaan ku karsan jirnay marka qoladana wadaana siiso makaroona ma ku shubnay isagoo biyihiisii fuuqiisaan dhammaysan ayaa laga ridi jiray mar karaatoon baan ku ridan jirnay mar garamaanteedaan ku ridan jirnay oon ka cuni jirnay wallaahi horta halka nolosheedu aad bay u adkeed halka waxaa Soomaali aan ahayn 69 qof waxa inta kala ahaayeen 450 ayaa waxa ahaa Eritrean على كل حال halkii baa lanagu ururiyay 869 qof ayaa halkii lanaga qaaday sanu soconay qolo Suudaaniyiina Chadis baa hadana na qaaday sanu soconay waa saxaraha gudihiisa sanu soconay ayaa waxaa lana mariyay Chad baa lana mariyay waxaa lana mariyay nature baa hadana dhanka saxaraha halkaas lana mariyay waxaana waday shufto malaha hadii awoodeedu aan qiyaas karin oo hadaad booqdaad ka hadlaysaa hadaad tiraahdo mooya biyo isii hadaad ku tiraahdo madaxa kaaga dhufanaysa xagiba calaa kulli xaal aan safarkaygii ku soconay waxaana la wareegay intaani qoladii Liibiyaanku la wareegin ayaa horta waxa naga dhintay 3 qof saddexdaa qof waxay ahaayeen qolo soo martay dhankan Jubbada malaria haysay iyo biyo la'aan iyo tamar la'aan bay u dhinteen waxa dhacday qoladii Liibiyaanka ayaa maalin duhura nala wareegtay
wayna qaadeen. marka waxaan ahayn 4 gaadhi oo looriya ayay qolada Liibiyaanku la wareegeen oon ka mid ahaa. 4taa gaadhi ee looriga waxaan ku saaranahay gaadhi waa Soomaali waa 154. 3 gaadhi kale 200 iyo 300 buu saaran yahay. gaadhiga cidhiidhiga iyo rafaadka iyo wallaahi waxaan laga sheekeyn karin horta xagii ayay Liibiyaankina la wareegeen goor duhura. waanu soconay gobolkii baa dhacay. waan aroornimadii bana qaadeen haddana markay nasiixiyeen saxara dhexdiisa intaas saxaraan socnaa. waanu soconay goor ay duhurkii tahay ayaa niyow tii ugu darnayd tii igu xumayd dhacdayba. gawaadhi yarar 4tii gaadhiga looriga ee Suudaaniyiintu nagu soo wareejiyeen Liibiyaaniintu waxay wateen gawaadhi yarar oo sida haartoobada waxay wateen qabaalay wateen xagii iyo xaajido xagiiba qoloba intoodii qaadatay. adugu calaa kulli xaal san u soconay goor ay duhurkii tahay ayaan waxa dhacday nin jaamac la yiraahdo oo reer Hargeysa Allah u naxariistay oo waxaan ku yiri Liibiyaankii ku yiri biyaan u baahanahay oo biyamaha inay ku yiraahdeen u diideen ayaa waxa dhacday dadkii saarna war biyasiyo biyo marka lama hayo way ka haadi tiisi baa noqotay isagoo biyo doonaya oo nafta hayso ay tiisi noqotay. xagiiba adugu ku dhacay gaadhigii ayaa la soo saaray. xagiiba adugu agteedu yaalaa waan iska durkinay agteedu buu yaalaa. waxa dhacday inan nimco la yiraahdo iyadana reeb dhaca Allah ya raxmaan raxmine ayaa iyadana ku xigtay oo Liibiyaankii ku tiri biyaan u baahanay. dadku waa wada go'doonsan yihiin naftaana wada haysa. kii Liibiyaanka iyadoo nafta hayso xagxagatay ay tiri biyaan mooya kii Liibiyaanka baa yiri sabarumuk nacal diinik irjac wakheer iga durga calasha. adugu wallaahi waxaan laga sheekeyn karin. xagiiba iyaduna ku dhimatay oo intuu laagay iska durkiyay ayaa waxa dhacday iyadana gaadhigii la soo saaray. marka biyaha Liibiyaanka la weydiisanayo markuu gaadhigu taagan intuu gaadhigu socdo waxaan ku yiri haleelimaysid isaguna ku istaagi maayo. waxaan ku intaad gaadhiga saaran tahay cadceed waxaad moodaa in inta lagugu soo dhaweeyay. waxa dhacday gaadhigaad ku fadhido waxaa jida qabaalka 500 qof lagu saaran yahay. gaadhiga intaad ku fadhido waa naar waa kulayl dabada dadka go'go'day way ulashay. calaa kulli xaal waxa ku xigay inan kala nimcaan la yiraahdo reer Hargeysa isagana isagoo nafta hayso ay tiisi noqotay. waxa ku xigay nin walaalkeena ahaa saaxiibkeena ahaa nolosha wada qaybsan jirnay isku dhiigahayn ayaa tiisi noqotay. waxa dhacday saaxiibkay wuxuu weydiistay kii Liibiyaanka ayaa ugu jawaabay laag iyo haraati. maalintaana hadiisa lagu riixo
naftuba way ka haadaysay. waxa dhacday ninkaa walaalkay ahaa ayaa wuu riixay, wuu iska tuuray, u laagay. wakheer buu yidhi, wakheer aduu u dhacay. waa la soo qaaday, gaadhiga la soo saaray. inuu koomo ku yara jiraan moodanoo mise nafba kuma jirto. gaadhiga uu saaran yahay waa la soo dhigay. waxa markaa dhimashadu imisee maraysaa? waa inantii Nimcaan la naxariistee, waa Nimcaan, waa Jaamac, waa walaalkay. waxa ku xigay inan kaloo reer Burco ah oo Axmed la yidhaahdo. waxa ku xigay inan kaloo isna reer Dirdhaba oo reer Jabuuti ah. iyadoo dhimashadu intaa marayso ayaa waxa dhacday kii Liibyaankaan leenahay meydkaan aasno oonan hadli karin, ka ugu caafimaadka qaba uu yahay ka qoortiisa u jeediya. nin walba nafta hayso yaa oo afkuna qalalay oon hadli kar laanahay ayuu saanoo eegay buu yidhaahdaa. markuu arkay markii koowaad markay dhimashadu laba maraysay ayuu yidhi kullu mowt saar. markii dhimashadu 6 maraysay ayuu yidhi saantuna eeguu yidhi soo dega. kii mid noogu faadhay waaweyn ayuu la dhacay bir. wuu ku yidhi kaale aas dadka. anagii oon kici karin oo aan hadli karin oon ilaahay ka baryano si raaxa leh ilaahay noo dilo ayaa waxa dhacday. la soo dejiyey meydadkii, halkii baa lagu aasay. suu yidhi imshi arkab. meydadkii anagoo aasnay oo saxaraa ciidda musaa loo kala fadhayay ayuu yidhi imshi yalla arkab. naxariis buu noogu dari waayeyba. adugu waxaan ka sheekeyn karin wallaahi dhibaatadaa saxaraha. xaggii baan adugu ku soo baxnay. waxaan soo socno aanu soo marano aan magaalo Kufra la yidhaahdo aan ku soo galnay 69 qof. 869 waan ahay. markaa waxay noqotay wax madhay, wax la dhacay, wax aduu intii calaa kulli xaal laga rabay ma aha in yaroo aan u dhaweeno tira 69 qof aan ku nimid magaalada la yiraahdo Kufra. xagiba adigu lanagu yara xanaaneeyay oo cuntada step by step la noo siin jiray. xagaasa dad badan oo iyaguna nafta haysay naftu ku soo noqotay aan islahayn ismaanaan lahayn rijo ama nolol bad ku gaadhaysaan meesha. calaa kulli xaal inan Cabdirasaaq la yiraahdo reer Hargeysa ayaa nagaga dhintay. inankaas ugu nasiib fiicnaa oon kafnay oon waxaan ku tukanay oon si fiican u aasnay. markii dambe aduu calaa kulli xaal waxaan meeshii joognaba wala naga soo qaaday meel timirta la yiraahdo ayaa lana keenay. intaa Kufra ilaayo intaa soo socnay waa iyaduna waa saxaro. waxa qolo shufta la yiraahdo waxaan ku yiri dadkan markaa tahriibayaasha waa la kala dhacaa oo waa la kala iibsadaa. hadhow ka adiga ku iibsanaya inta lacag ma bixinaysid, ka adiga ku iibsanaya inta kugu soo iibsada maaha 4 laab ku saaranaya oo hadhow ka dirsanaya oo 2 adoon buu leeyahay say ku garaacayaan bay dhiigaaga matajanaan nololba kugu madiinayaan. haddaad lacagta u soo dirtana keliya leedheer buu ku banaanayaa daaradaasunba dadka ku dhaantaa. inta kale ciqaab baa u socota.
adu calaa kulli xaal wallaahi waxaan soo koobi karin ama aan ka sheekeyn karin. niyow adugu wax timirtii la yidhaahdo aan soo galnay meeshii timirta ayaan soo galnay xagiyo markaa timirta iyo kufaa u dhexaysay ayaa lanagu dhici gaadhay oonu ku badbaadnay oo la rasaaseeyey oonu ku midhan gaadhnay. xagga timirta marka soo galnay anugu xoogaa haddana joognay ayaa lanaga soo qaaday. waxaa lanoo soo waday magaalo la yidhaahdo Benuwelid intaa meeshii timirta habeen 4 ilaa adugu may waxa lanaga soo qaaday 1 markay 4 subaxnimo tahay ay gawaadhidu saxaraha saa u marayaan 6 gaadhi aan nahay ayaa waxa dhacday la ogaa qoladana wada ay ogaatay in shufta meesha ku jirto qolo markaa jaadiisa dadka dhaca Liibiyaanka madmadowga waxa dhacday waxa yiraahdeen niyow meeshii shufta ku jirtay inuu ka istaagno noo gaadhi baa khilaafay anu dadkayga waan wadayaa dad waan wada socnaa hadda soo raacsan soo raac adu calaa kulli xalaalkii baa lagu soo baxay goor ay 8 tahay subaxnimo oo markaa laba gaadhi ciida galaan oo labada gaadhi ciida galay dadkii inta la dejiyay ay dhulka furfadhiyaan intaydii kale gawaadhidu aanay ka degin oo caradii meeshii labada gaadhi galeen intay ka baxeen meel tuulo kala taagan ayaa waxa dhacday waxaan aragnoon gawaadhi qabaalo saa u soo ordayo qoryo waaweyn saaran yihiinoo rasaas bilaabayba halkii baan waxa dhacday iyaga kuwana wada iyagu laftigooda hub bay wataan mar walba oo waxaan iyagu way garanayaan dadkan la kala dhaco way ka cabsadeen laga dhaco adu calaa kulli xalaalkiiba hubkii la soo degeen iyagu laftigoodu isdifaacay sigaayano labadan gaadhi inta laga saarayo ay isri difaac waxa dhacday beerka saado dhulka saaray isri difaacdi nin markaa laf weyn ha oo Liibiyaan Liibiyaanka cadaaha oo odayaha oo ilaa 50 jir ah ayaa waxa dhacday muddo koobaad iyo labaad iyo saddexaad markuu riday kuwan soo socda ayaaba ku taxayba bartaasi ka soo dileen intii soo ordayaan ay gaadhiida soo saaran yihiin bay ka soo dileen adugu waxa dhacday xaqii markii ku dileen ayaa kuwii kale iyaguna akayaasha watay iyo qori dabadaloolkii ayaa waxa dhacday iyaguna markaa kan la dilay ay mid labaadna barti ka soo dileen ay waxoogaha u soo jiraan ayaa gawaadhideediyo halkan wada taaganba markiiba bidig yaacday labadii gaadhi iyo 4 nin lagu dilay bartii waan kaga nimid iyo dadkii labada gaadhi saarnaa waa la dhacay mar dambe inoogu iman doonaan meel xoosh kale anagoo joogna oo la soo iibsaday inoogu iman doonaan way nooga sheekeyn doonaan oon isku aragnay waxay ku leeyihiin 4 nin markii la dilay ayaa waxa dhacday ay noo yimaadeen waxay yiraahdeen labadii gaadhi horta shidaalkii wixii iyo magaranaysa saxaydii ay ka wareejisteen gaadhi kalena way soo istaadeen oo soo kaxaysteen war adugu gaadhigii kale ayay niyow bartii ku ololiyeen gaadhigii kalena inta munaafacaadkii wixii soo saarteen waxay ku leen dadkiina hal gaadhi bay iskugu soo rogeen iyagu wateen waxay yiraahdeen markaa waa Eritrean Soomaaliya ku jirta weyn Soomaali bay yiraahdeen oo saa Soomaaliya 3 qof ay noqotay inta kale Eritrean bay noqdeen bisuuli wadil gaaxab shit buuri Soomaalidu maxay u badan weyday markaa Soomaalidu waa dadka ugu qaalisanba xaga sixirka xataa ya dadka kale way kala cag badan maxay ku soo beereen soo maxay weeyeen Soomaaliga hadii maanta oo dhan la tumo us deewa markaba lacagta oo la soo diraa kan kale xabashiga
haddii maanta oo dhan la tumayo oo meydkiisa la cunayo, wax allaaliyo wax u soo dira ama cid u soo dirtaa ma jirto. Saalaajigeed bay Soomaalidu jecel yihiin. dhibaatooyin badan oo dabcan laga sheekaystay waa kala xanuun badan. hal ama labo dhacdooyinkii kugu xanuunka badnaayo marar ilaawi karin ee aad kala kulanta safarka maxay ahaayeen dhacdooyinka? niyow horta ta iigu darnayd ama iigu xumeed waxay ahayd markan nin aan walaalahayn oon isku dhiigahayn oon noloshooda qaybsan jirnay oon ku wada haaminay inaan meel ka wada degno oo ilaahay tiisii ka dhigay oo saxarahayga ka dhintay. dhibaatadaas horta ani igu weyday aada iyo aad naftayda waxaan ku idhi damaqday oo naftaydana wax yeeshay. haddaan ka sheekeeyo dhankan kale xooshashka iyo halkan dhalinyarta ama dee dadka iyo Soomaalida iyo Eritreyaanka lagu ururiyo lacagaa lagaga dirsado, taa wallaahi iyada laftigeeduna waxaa ugu daran marka lacagta soo diro soo kale. horta kan meesha haystaa 2 adoon buu leeyahay. kow maalinta saadad ugu timaado aroornimadaba 4 subaxnimo salaada subax ayaa lagu kicinayaa, markaba lagu odhan maayo hooye waa lagu yaro tumaya. 2 nin adoon waxaan ku yidhi intay ku qaraacayaan way ku nasanayaan, haddana sharaab yar iyo casiir yar bay cabayaan, haddana way ku qaraacayaan. horta adoo tamar beelay ayaad reerkiina la hadlaysaa. haddaan ka sheekeeyo xaggan xooshashkan iyagu xaggan xeebta waxaa jirta kuwan xeebta markaad xooshkii aad xeebta intaanad iman aad Benuweliid joogto aad lacagta soo dirto eedu waxaan ku yidhi u soo socoto dhanka xeebta ee dhexda lagaa dhacaya. taana waa dhibaatooyinka ka mid ah markaad xooshka ka soo baxdo. adiga dhibaatooyinkaas kala duwan markaad soo martay markii kuugu horeysay aad maqasho in waqti ka socda dowladda ay soo gaareen oo ay celinayeen maxaa dareentay? wallaahi horta taa aad iyo aad baan ugu farxay, laakiinse waxaan taa ku maqlay oo dowladda nagu soo gaadhay markaan xabsiga ku jirnay. xabsigana waxaan ku galay niyow markaan meel la yidhaahdo Sahwiya ayaan doon ka raacay. markaan Benuweliid ka soo baxay ee la keenay Garabooli meel la yidhaahdo aan doonta ka koray ee doontii la isku dhex qabsaday ee waxaan ku yidhi badiina nagu kacday barf nagu noqotay ayaa dib loo soo laabtay. halkii baa lagu kala yaacay, la wada galay nin walba halku cagtiisu dhigto. haddaba markii labaad haddana aan hamiyey inaan badda galo ayaan meel Sahwiye la yidhaahdo ka galay badda. habeenkan badda gelayay aad bay badda u kacsaneyd, laakiinse waanu galnay. waxaan ku galnay 2 doonyood iyo doon saddexaad iyadoona aan badda isku dhex arki doono. waxaa dhacday doontaa markaan raacanay 2 doonyood, doonta horta agtaada lagu rakibaya line saf baad saa u gelaysaan. waxaan ku joognaa 2 doonyood marka la rakibayo Afrikaan, Senegal, Cameroon, Ivory Coast, Guinea Conakry, Mali iyo Sudanese iyo Moroccoese iyo Pakistani, Bangladesh. saas qoomiyad walba ama dad walba ama jinsiyad walba ay leen ugu jirtaa. waxa dhacday doonteedii markaa la hor rakibo Soomaali, Suudaan raacsi iyo Bangladesh, Moroccoese iyo Pakistani. waxa dhacday markaa 2 doonyood kaliya waxa loo hayaa doon walba wax loogu tala kale horta jiheeyo
iyo taranyo. labada dooyoodna waxaa loogu talagalay hal jeeyo iyo hal taranyo. halkiibaa waxa dhacday aanu ku nidhi sande dhicmaysa taranyo jeeya mana siiyaa. wuxuu yidhi labadiinu mar walba waad iska rab soconaysaan, taranyo jeeyaa san idiga dhexeynaya. faransiis yaa garanaya, ingiriis baanu garanaa baanu idhi. bes buu ihi khalli buu ihi imshi buu ihi niyo tan afrikaantan u dhiibayaa, mar walba iyagaad garab soconaysaa. waxaa dhacday xaggiban adugu doontiidaa la rakibay, waanu kornay. wuxuu yidhi tanaanu soo dhiibayaa taranyo jeeyaada. labadaa markab ma arkaysaan? haa, waa laba markab markaa liibyaana oo iyagu leeyihiinba. wuxuu yidhi labadaa markab dhexdooda ayaad istaagaysaa, halkaas intay doonta kale soo baxaysaad kusii sugaysaa. waa si wanaagsan. 2 saacadood keliyaad haysataan buu yidhi baddaas inay salli tahay. halkii baan ku baxnay. markii hore niyo Soomaali 20 baan nahay. niyo Soomaaliyay weydii ka arkay maxaan yeelnaa, nafteenan halaagnaa. waniga markii hore Soomaaliya soo bixin ayuu walba yidhi haa bas ina geliya nasiibkeenan qaadanaa. aduu taranyo bilaa jeeyi bartii baan ku kornay. ninkii liibyaanka haddaba doonta kale iyadoon inta la soo rakabayo ayuu yidhi dee waa ka yidhi labadaa markab dhexdooda istaaga, markaad istaagtaan ku sugatan intay soo baxayso. aduu xaggii baanu istaagnay, xaggii baan taagnayn. adugu waa doonay ma doon baa ku istaagaysaa, kolba muujaddaa ku wadaysaa dad baktiisanaya. waa bac yaa 100 waxaan ku saaranaya 40 120 way nagu dhahay ayaad ku koraysaa. meeshan bacda dhexdeedana inta loogu talagalay in lagu fadhiistaana waa siliig kowdhe oo loox siliiga. waxa dhacday waa noo soo hadalay markaa moobilaan la kornay. markaa kaadh almadaar 2 kaadh weyaan, liibyaani iyo madaar. kaadhka madaarka ilaa intaad markabka korayso shaqeynayaba khadkiisu iyo anteenkiisu taagan yihiin. waxa dhacday halkii baan adugu calaayi kula xal aan istaagnay. waan la soo hadlay, waxaan nidhi maanay soo bixin. wuxuu yidhi iskaandar qariib buu yidhi, iskaandar qariib 50 kilomitir kowdhe 50 kilomitir calaa 15 kilomitir buu markabka idii jiraay socda. oo maxaa dhacay doontii waan dilay kii kabtankiina ma soo baxasee socda ha igu soo noqonina yaa wadulgaaxba. halkii baan adugu mid sudaaniisaa noo wadayo waan dhaqaaqnay. sanu socday badii kacday 2 saacadood keliyaan haysanaa, waxay baddu salli tahayba. waxaa dhacday aduu calaayi kula xaal bacdii naqaskii way ku daysay, kolba way sii daynayso sii dhimaysaa. doontii way dalooshantay, waa hoostaa sheefishtaa ka soo haysaa. biyihii intaasu noo maraya. kii kabtanka sudaaniga ayaa lagu dhahaa neceli, kaasi kamaba qasnaba. wuu nawaduun. aduu waxaa loo kala baxay dadkii meesha ku dhex jiray, doonta ku dhex jiray dad idhaahda neceli iyo oo dib bartaanu ka nimid nagu celi, iyo dad idhaahda nawad. aduu calaayi kula xaal waxuu nawado 18 saac baan ku jirnay. waxaan aragnay doon. waxaan ku idhi intii yareed bacdo keliya ka soo hadhay oo dhexdu dhulka gashay. boqoliyo dheeraad baa lagu saarnaa. meydku saasuu riisaysan yahay badda dusheeda. waxa keliya ku jira in yaroo nool. aduu xaggii baa lagu dhaafay oo taayadii baaba laga warwarsanaaba. aduu dadkiina lama eegin, saasaan u eeganaa.
dadna meeshii doontii ku dhex xanuunsadeen, dadna waxaan ku nafta haysa. aduu calaa kulli xaal waxaan soconaba waxa goor ay tahay 4 ilaa meelaha 5 subaxnimo ayaan markab aragnay. markabkii baan maxay toolay aan isku toosinay. markabkii naga orday 2 markab oo kale aan aragnay. labadaan haddana isku toosinay way naga ordeen annagoo yaaban. markab waa caadi calankiisa aan aragnaa oo Talyaani, markab waa Jarmal. way naga ordayaan, waa naga yaabnay. waxa dhacday motoorkii bartiiba adugu ku baktiyay. bartiiba aan isku dhiibnay badda dhexdeeda annagoo yaaban oon islahaynba nolol baad dambaad rajaynaysaanba. ayaa waxa dhacday aan aragnay helicopter, haddana helicopter labaad. waanaga gacmaha u fidinay. waxa dhacday waxaan aragnay haddana miig, waanaga gacmaha u fidinay oo kuwa aduguna sawireen. waa kuwa markab Liibiyaana noo wacayba. waa markaa waa Talyaanigii, waa bii Talyaanigan ku jirnaa. bii Talyaaniga iyo kii Liibiyaana in yar bay isku jiraan baxadku. adigu waxay biyihii nawado ay doontii waxaan ku iri taayadu baanay noqonay. ay waxa markay wacaan kii markabkii Liibiyaanka markabkii Liibiyaanka oo doontii habeennimadii aan isla soo baxanay oo ay dadkii uu soo qaaday oo wado iyo wuxuu wadaa doontii lagu madhay. intii soo hadhay dadkii isagoo wada xagii baad u noogu yimid, xagii uuna qaaday, xagii baad ugu nagu soo dejiyey Tripoli. markab sabraate laga leeyahay dib baa lanoo soo celiyey. markab sabraate laga leeyahayna waday Tripoli una keenay. xagii kadib naga soo dejiyey. adugu hay'adii wixii baa noo yimid anagoo isle hay'adii baad haddana rajo ka sugaysaan. ayaaba xagii meeshii hay'adii lana gelin lahaa ayaa lana geliyey meel maqsinlooda la yidhaahdo oo xabsiga Tajuura. xaggii baan adugu wallaahi ku rafaadnay. mar kale iyo haddana gafiyaasha gacanta soo gasheen. waa askartii aan gacanta ugu soo galnay. waa tahay goorma idin yimaadeen waqtigan dowladda ka socday soo waxay noogu yimaadeen anagoo maqsiga ku jirna oon Ilaahay sugayno oon Ilaahay leenahay Ilaahay gurmud degdeg ah noo soo dir. ayaa maalin lanaga soo saaray. maalintaas saacad noogu horeysay waanaga soo baxnay. waxa dhacday anagoo yaabo faraxsan oo cadceed aragnay, iftiin aragnay oo lana keenay inta godkii lanaga soo saaray meesha kale hay'adu dad kale ku hayso agteedii baa lana keenay. xagiiba waxa dhacday aan aragnay 2 odayoo soo socda. waanaga Soomaali Suudaaniyiin baa soo Soomaali. waanaga markuu bilowgii yidhi assalaamu calaykum fiicantiin yidhi ayaan farxnay. maalintaas noogu horeysayba waayeel Soomaali ama madax Soomaaliyeed oo halkaa noogu timaada. xaggii baa adigu waxa dhacday uu yidhi waxay soo diray madaxweynaha Farmaajo. waxaan u yimid inaan deer dhibaatadiina cidii dalkii u baahan iyo dalkii idii baahan yahay inaan idii celiyo. halkiiba dee nin walba ku ogolaaday. adugu waxa dhacday haddana waxaan ku nidhi qolada Liibiyaanka nagala hadalo ta u sheeg gudkan kuma noqon karnay. qoladii buu la hadlay, qoladii buu ku yidhi way baxsanayaan. mar kale aan ka soo saari doona. aduu wuxuu yidhi waynii dadaalayaa. aduu calaa kulli xaal halkiibuu lanagu celiyey. cuntadiiba laakiin naga hela wanaajiyeen 2 waqti nooga dhigeen.
ugu dambeynna meeshii inta lanaga soo saaray meel kalena keenay iyo waftigina soo saaray. alxamdulillahi rabbilcaalamiin. maanta dalkaygii hooyaan joogaa. silic iyo rafaadna wallaahi waan soo maray oo waxaanan ka sheekeyn karin. yaa madaxweyne farmaajo oo wafdiga asaga dabcan soo diray, maxaad ii sheeg waqtiga xaadirkan meesha aaminsan tahay? niyow alxamdulillahi rabbilcaalamiin. marka hore horta ballanqaad iyo shaqo abuurba waa lanoo ballan qaaday. waxaan leeyahay ballanqaadyadii iyo shaqo abuurkii horta haddaan nahay qoladii labaad horta pocket money yar wayna siiyeen. shaqo abuurkii iyo ballanqaadyadii ay kala waaweynaa ayaan weli lanoo sameyn. marka waxaan leeyahay way noo ballan qaadan weli waanu ka suganaa, laakiin se haddaan ka helno dad badan oo aan aaminsanayn inaan helino oo xabsida ku jiro oo Trablis jooga ayaa maanta haddii arkaan oo inaan wax qabsanay oo ma garanaysaayay ballanqaadyo lanoo oofiyo, dad badan baa dalkoogii soo aaminay. waa tahay ma laga yaabaa inaad Hargeysa ku laabato? horta Hargeysa iyo maanta halkan oo isku ka yimid. alxamdulillahi rabbilcaalamiin. kolba halkii aan jecelahay inaan ka shaqaysto oo businesskaygu iyo dee ma garanaysaayay igu kordhayo unbaan mar walba dee ma garanaysaay joogaya. ugu dambeyntii kooxihii dhibaatooyinkaas badan ku geystay deegaanka haddii aad ugu dhahaan lahayd maxaad ku abaalmarin lahayd oo ugu gudsan lahayd xanuunka ay dhibaatada ay kusoo marsiyeen? qolooyinkii haddaan heli lahaa horta wallaahi waxaan horta halka aan ka sheegi karinba kowdhe. markaa taa naftaydunbaa dee anu iskugu sheekeyn karaa kowdhe. wallaahi maan nolol kumaan daayeen, mana dileen, manaanan nooleeyeen kowdhe. marka alxamdulillahi rabbilcaalamiin. waxaan leeyahay dhalinyaroy dalkeena aynu aamino, waxay nooga horeeyaan ma jiraan. haddii maanta lanoogu ballan qaaday shaqo abuur dee dowladdu inala garab taagantahay.